waxaynu gudaha u galaynaa barnaamijka boqortooyada Sacuudi Carabiya waxay dhacdaa bariga dhexe gaar ahaan koonfur galbeed qaaradda Aasiya waxa ay ka mid tahay dalalka ugu dhulka ballaaran ee jaamacadda Carabta waana dalka labaad marka laga soo tago waddanka Algeria waxayna xad la wadaagtaa wadamada Ciraaq, Urdun, Kuwait, Qatar, Bahrain, Yemen iyo Imaaraadka Carabta waxa kale oo ay xad la wadaagtaa gacanka Farisiga oo kaga beegan dhinaca waqooyi bari iyo badda cas oo kaga aadan dhanka galbeed baddan 2,449,690 kilomitir laba jibaaran ayuu ku fadhiyaa Sacuudi Carabiya halka dadka Sacuudiyiintana tiradooda lagu qiyaaso 33 milyan oo ruux boqortooyada waxay yimaada sanadkii in ka badan 2 milyan oo ruux Riyadh waa caasimadda waddanka Sacuudi Carabiya iyo sidoo kale magaalada ugu weyn dalkaas waana mid ka mid ah magaalooyinka ugu weyn magaalooyinka kale ee Carabta marka loo fiiriyo dhanka tirada dadka ku nool sanadkii 1870 ayaa boqortooyada Cusmaaniyiinta waxay la wareegtay gobolka Xasa waxaana 20 sano kadib oo ku beegneed 1890 qoyska Rashidi ay qoyska Sacuud u musaafiriyeen dalka Kuwait sanadkii 1902 ayuu Cabdulaziz bin Cabdurrahman bin Faisal bin Turki bin Abdullah bin Muhammad Al Sacuud oo loo yaqaanay Ibn Sacuud waxa uu la wareegay gacan ku haynta Riyadh waxa uuna Sacuudi Carabiya dib ugu soo celiyay qoyska Al Sacuud 1912 waxa la aasaasay Ikhwaanka durbadiina waa uu faafay waxaana taageero muhiim ah siiyay Cabdulaziz 1913 gobolka Xasa waxa Cusmaaniyiinta dib uga qabsaday Cabdulaziz waxa uuna sanadkii 1921 qaatay magaca ah Suldaanka Najda muddadii u dhaxaysay 1924 ilaa 25 waxa la qabsaday boqortooyadii Xijaaz oo hoy u ahayd magaalooyinka barakeysan ee Makka iyo Madiina 1926 Cabdulaziz waxa magaalada Makka lagu dhawaaqay inuu yahay boqorka Xijaaz sanadadii u dhaxaysay 1830 ilaa 1928 Ikhwaanka ayaa ka soo horjeestay Cabdulaziz sababo la xiriira casriyeynta gobolka iyo waliba tirada dadka aan muslimiinta ahayn oo halkaasi ku sii badanayay waxaana markii dambe ay guusha raacday Cabdulaziz bishii Sebtembar sanadkii 1932 waxa la mideeyay deegaanada uu xukumayay Cabdulaziz waxaana loo bixiyay boqortooyada Sacuudi Carabiya waxaana la boqoray Cabdulaziz 1938 saliidda uu dalkaasi qaniga ku yahay ayaa la helay waxaana bilowday soo saaridda saliiddaasi waxaana maamulayay shirkad uu Mareykanku maamulo oo lagu magacaabayay Aramco bishii November sanadkii 1953 waxaa geeriyooday boqor Cabdulaziz waxaana dhaxal sugihii xilligaas oo ahaa Sacuud bishii November 1964 boqor Sacuud waxa afgambiyey walaalkii Faisal sanadkii 1972 Sacuudi Carabiya waxay boqolkiiba 20 heshay wax soo saarka saliidda ee shirkadda Aramco waxaana yaraaday awooddii Mareykanka ee shirkadaasi 1973 Sacuudi Carabiya waxay hormuud ka noqotay cunaqabatayn dhanka saliidda ah oo ka dhan ahayd wadamada reer galbeedka ee Israa'iil ku taageeray dagaalkii Oktoobar ee ka dhanka ahaa Masar iyo Suuriya bishii Maaj 1975 boqor Faisal waxaa qaarijiyey wiil uu dhalay walaalkii waxaana dhaxlay walaalkii Khalid waxa uuna markii dambe geeriyooday bishii Juun sanadkii 1982 waxaana dhaxlay walaalkii Fahad sanadkii 1990 Sacuudi Carabiya waxay cambaaraysay weerarkii Ciraaq ay ku qaaday Kuwait waxayna weydiisatay Mareykanka inuu arrintaasi fargeliyo waxa ayna sidoo kale sanadkii 1990 ku lug lahayd dagaalkii ka dhanka ahaa ee cirka iyo dhulka ee lagu qaaday waddanka Ciraaq kaasi oo lagu xoreeyay waddanka Kuwait 11 Sebtembar 2001 15 ka mid ahaa 19 nin ee ka qayb qaatay weerarkii lagu qaaday New York iyo Washington ayaa noqday muwaadiniin Sacuudi ah waxaana 3 bilood kadib uu boqor Fahad ku dhawaaqay ciribtirka waxa uu u magac daray argagixisada bishii November 2002 Sacuudigu waxa uu mamnuucay in Mareykanku uu isticmaalo xarumihiisa si loo weeraro Ciraaq bishii Abriil 2003 Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inuu la baxayo dhammaan ciidamadiisa ku sugnaa Sacuudiga bishii Oktoobar 2011 Naif bin Cabdulaziz Al Sacuud ayaa loo magacaabay dhaxal suge kadib markii uu geeriyooday dhaxal sugihii hore ee Suldaan bin Cabdulaziz Al Sacuud Juun 2012 waxaa geeriyooday dhaxal suge Naif
waxaana dhaxlay salmaan oo ahaa wasiirkii gaashaandhigga waxaana janwari 2015 uu dhaxalka boqortooyada la wareegay kadib geridii boqor cabdalla. haddaba taariikhda waddankan oo kooban iyo nidaamka xukun ee sacuudiga waxaa inooga warramaya ustaad jaamac ducaale. waddankan nidaamka xukunka maamula waa nidaam boqortooyo. boqorka waddankan maamula waa boqor salmaan bin cabdicasiis aala sacuud. dhaxal sugaha waddankan waa wiilka uu boqorku dhalay oo ah maxamed bin salmaan bin cabdicasiis aala sacuud. dhanka sharci dejinta waddanku wuxuu leeyahay golo wasiiro iyo golo shuuro. golaha garsoorka waddankan waa maxkamadda sare ee garsoorka ee ugu sareysa, halka golaha fulintan ay tahay xukuumadda uu hogaamiyo khaadim alxaramayn ashariifeyn. dowladda sacuudigu aasaasitaankeedii waxay soo martay heerar kala duwan ayay soo martay. markii ugu horeysay ee dowladdii reer sacuud ugu horeysay la aasaaso waxay ahayd 1744, halka dowladdii labaad ee reer al sacuudna ay ahayd 1818. heerka saddexaad ay soo martay dowladda sacuudiga saddexaadna waxay ahayd 1902, halka dowladdii saldanadii najda ee reer al sacuud ay lahaayeen ay ahayd 1921. laakiin waxaasoo dhan waxaa la mideeyey oo magaca boqortooyada ay baxsadeen 23 sebtembar 1932. waddankan xukunkiisa ilaa muddadaas laga soo bilaabo ilaa iminka wuxuu hoos tagaa reer aala sacuud ayuu hoos tagaa. waxaana aasaasay ama salka u dhigay boqortooyada reer sacuud maxamed bin sacuud sanad markuu ahaa 1744, halka ay magaca ka qaadatay boqortooyada sacuud carabiya waxay ku abtirsataa magaca dowladda ama lagu abtiriyaa magaca ninkii dowladda aasaasay ee ahaa sacuud bin maxamed aala muqrin, waana awowga ugu weyn ee qoyska waddanka xukunkiisa haya. markii ugu horeysay ee magaca sacuudi la maqlo waxay ahayd ku beegneed mar ay qoraallo lagu arkay ay isku dirayeen mustacmaradii ingiriiska ay gumaysan jirtay sacuudiga. madaxdoodii ay u dirayeen boqortooyada britain ayay kusoo qaateen magaca sacuudi. waddankan meesha ugu sareysa ama fikta ugu sareysa waddankan waxaa lagu magacaabaa buurta loo yaqaano sawda oo dhan 3015 mitir, halka barta ugu hooseysay waddankan ay tahay badda cas. caasimadda waddankan waa riyaad, luuqadda looga hadlana waa carabi. waddankan wuxuu xubno ka yahay ururo aad u fara badan sida qaramada midoobay, jaamacadda carabta, ururka ganacsiga caalamiga, ururka iskaashiga dowladaha gacanka carbeed, ururka iskaashiga islaamka iyo ururo aad u fara badan ayuu xubno ka yahay. sidan hore u sheegnay waddankan wuxuu ka mid yahay wadamada dhaca jasiirad weekaha carabta. jasiirad weekaha carabtu waa qayb ka mida dhulalka ku yaala koonfur galbeed ee qaaradda aasiya, gaar ahaan halka ay ku kulmaan labada qaaradood ee afrika iyo aasiya. sidoo kale wuxuu xuduud dhanka badda la leeyahay oo dhanka waqooyi galbeed kaga leeyahay badda cas iyo gacanka caqaba. dhanka koonfureedna wuxuu xuduud kala leeyahay jasiirada carabtu ay kala leedahay jasiirad weekaha carabtu badda carabta. dhanka koonfur barina waxay kala leedahay gacanka cumaan iyo gacanka carabta. dhulkan loo yaqaano jasiirad weekaha carabtu waa dhul kulmiya dalal aad u fara badan oo ay ka mid tahay boqortooyada sacuud carabiya. sidoo kale wadamada kale ee ku yaala dhulkan waxaa ka mid ah waddanka yeman, cumaan, urdun, imaaraadka, kuwait, qatar iyo baxrayn. waxaa lagu qiyaasaa baaxadda ama bedka uu ku fadhiyo jasiirad weekaha carabtu inuu gaarayo 3 milyan kilomitir square, halka aan hore usoo sheegnay 3 milyan ee kilomitir square in 2 milyan oo ka mid ah ay leedahay boqortooyada sacuudi carabiya. dalal kale ee soo haray gebi ahaana ay kala qaybsanayaan 1 milyan kilomitir square. laakiin dhulkan aadka u ballaaran ayaa intiisa badan wuxuu yahay dhul lama degaan ah aanan la deganeen. dhulkan jasiirad weekaha carabtu waa dhul inta badan ay degnaan jireen xadaarooyin hore ee baaba'ay sida qoom samuud, caad iyo madyan iyo kuwo kaloo aad u fara badan.